xilli abaaro daran ay ka jiraan guud ahaan gobolka Waqooyi Bari ayaa hay'adda Kuwait Horizon Charity Society waxay gargaar bini'aadanimo gaarsiisay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan ismaamulka Wajeer kuwaas oo si weyn u saameysay abaarta daba dheeraatay. Gargaarkan oo iskugu jira biyo iyo baad ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo dhibaatada haysata qoysaska nugul iyo xoolo dhaqatada kuwaas oo waayihii dambe wajahaya biyo la'aan iyo cunto yari baahsan. Mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda Kuwait Horizon Charity Society ayaa sheegay in ujeedada gargaarkan ay tahay in la badbaadiyo nolosha dadka iyo dunyada isla markaasina lagu garab istaago bulshada ay saameeyeen xaaladaha abaareed ee soo noqday. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. We are now in Wajeer, in the desert of Wajeer. Alhamdulillah, Allah give us good moving to help these people who haven't now water. There is no rain in maybe 3 years. It's not easy for these people, and we start moving to help these people, especially in this place, and also Wajeer and Garissa and Mandera. What we do is good moving to help the people and let them have a life with their sheep and others things they like it. The Kuwaiti Horizon Charity Society, it's beginning a lot of time to make this helping for different people, and inshallah we will continue us to help these people as we can, because they have needed about this water in a lot of time. What we do now, this is the start, and we will inshallah not stop unless to keep these people in good life, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta ay taariikhdu tahay 25 December 2025 waxaanu hay'adda Kuwait Horizon Charity Society waxay ka qaybisay raashin iyo biyo dadka abaaruhu saameeyeen tuulooyin kamid ah tuulooyinka hoostaga magaalada Wajeer dadkana xoolaha ay ka dhamaadeen oo baaba ah xaaladooda aad u hooseyso ayaa waxaan la soo gaarnay biyo walaalahayna nooga imaaday dalka Kuwait oo caawin iyo kaalmo ugu imaaday inay dadkan abaaruhu saameeyeen waxay la soo gaareen halkan biyo iyo baad labaduba dadkuna aad bay u rafaadsan yihiin waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadkii awooda ama cid kasta oo awoodi karta inay ka soo qayb qaadato oo ay gacan ka geysato arrintan abaarta. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. qaar ka mid ah shacabka ka faa'iideystay gargaarkan ayaa muujiyay farxad iyo mahadnaq iyagoo sheegin taageeradan ay tahay mid ku soo beegantay xilli aad u adag kana qayb qaadan doonta yareynta dhibaatooyinka nololeed ee haysta. Salaam alaykum. Aye annaga alkii waa naga duugan malan ka abna male aniga la fahantayday inta waxaan ka abdaan way ceelkan biyaha la keenan ku qabeed sheekhan Sheekh Maxamed Nuur waa u duceeyna intii la shaqeeyna asaga waa u duceeyna gargaar weyn mahad weyn aan maanta u celinaynaa haddana waxaan u baahannahay waxaan cuni lahayn yaan u baahan mahad weyn aan u celin Sheekh Maxamed Nuur hay'adiisa waan u duceeyna maanta ducanaan siina Sheekh Maxamed Nuur intii la shaqeynaysa mahadaan u celin. Assalaamu calaykum. magacaygu waa Maxamed Ismaaciil hay'adan Maxamed Nuur ee saacidaysay horta way mahadsantahay ilaahay hoodiisa laga dhergaa laakiin maanta aad baan u tabaaleysnaa oo xun baan nahay oo kana weli uu nahaya xoolihii abaar baa la tagtay dadkana uu daba jooga wax dawladda oo saacidaynayana malaha
hay-addan aad iyo aad bay u mahadsan tahay aakharana ilaahay intii biyo uu bixiyo jannadii firdowsaha ugu bedelo waxaan codsanaynaa weliba in naloo soo kordhiyo biyaha maanta waan oo baxnay maalin walbana waa oomannahay ilaahay hoodiisaa laga dhergaa dhulkan 2 sano roob kama dhicin dad dunyadii way tagtay dadkiina wuu daba joogaa wax dawlad oo na gargaarayso oo haddana daba taagana male ceelkaas mashiin bay ahayd mashiinta haddii ay furan tahay maanta ay biyo leedahay magaaladan booyad looma dhaamiyeen waxaan codsanaynaa hay-adda inayna garab qabato oo ceelka ay nagu saacidayso wixii ay ka qaban karto haddii ay meel kale ay wax ka keenayso oo dad kale ay saacideyn ka haysatana in nala saacideeyo dadweynahan aad buu u dhammaanayaa magaalada isbitaal male biyo male baad male xoolihii waa tageen naf ku nool baa la ahaa dadkan waa tuulo meesha degay carruur baa iskuul ugu jirtaa dugsi ugu jirtaa waxay hayaan male dawlad wax ma siiso ayagayna waa waan oo baxnay waan qabownay hay-addan Sheekh Axmed Nuur wato iyo wadaadkan carabta hay-addan waa ku oon baxnay waan qabownay kor Allah ka yeelo ilaahay u gargaaro nabad Allah ka dhigo annaan roob khayr qaba Allah na siiyo insha Allahu lilkariim waa oomanahay maanta waa waran bahina waan oomanahay waxaan rabnaa sidii noola saacideeyo oo noola saacideeyo ilaahay kuma intii noola heli kara noola keeno baaba baan nahay oon arrin gooba la dheh oon baan nahay